Bismillahirrahmanirrahiim. Galab wanaagsan. Halkani waa xog baahiyaha ciyaaraha. Barnaamijkeena galabta waxaan xoog ku saari doonaa qodobadii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe iyo like sar asxaabtaadana la wadaag. Mahadsanidin. aynu ku bilaabnay sida uu qorayo transfer market web tartanka loogu jiro saxiixa 23 jirka reer Talyaani iyo kooxda Sassuolo Manuel Locatelli ee xilli ciyaareedkan ayaa sii adkaanaya iyadoo tartankaasi ay ku soo biirtay naadiga Real Madrid ee wadankaasi Spain. xidiga da'da yar ayaa booskiisa noqday mid aan la taabanin kadib markii kooxda AC Milan ay iska fasaxday sanadii 2018. kooxaha Manchester City iyo Chelsea ayaa si xooggan loola xiriirinaya saxiixa xidigan, balse maanta ayaa wararku sheegayaan in Madrid ay ku biirtay dadaalka loogu jiro saxiixiisa, waxaana midani ay imaanaysaa maalmo kadib markii Madrid ay tababaraheeda u magacaawday macalinka reer Talyaani ee Carlo Ancelotti. kooxda Manchester City ayaa u aragtay xidigan beddelka mustaqbalka dheer ee Fernandinho, halka Chelsea ay rabtay inay beddel uga dhigto laacibka reer Talyaani Jorginho oo aan la hubin mustaqbalkiisa naadiga London. balse xiisaha Madrid ayaa noqon kara mid soo jiita xidigan iyadoo Real Madrid sida la ogyahay qadkeeda dhexe ay daado hareysay, waxaana magacaabista Carlo Ancelotti qayb weyn ka ciyaari kartaa soo xirigelinta laacibka reer Talyaani. dhinaca kalena kooxaha Manchester City, Manchester United iyo Chelsea ayaa galay heegan iyagoo ku dagaalami doona saxiixa laacibka kooxda Barcelona Alex Moriba, oo wararku tilmaamayaan in kooxda laga fasaxi doono xagaagan. Moriba ayaa ka soo qalin jebiyay akademiyada La Masia ee kooxda Barcelona, waxaana xidigan 18 jirka ahi uga harsan heshiiska kooxdiisa uu kula jiro muddo hal sano ah. waxa ayna Barcelona ku guuldareysatay ayaa la leeyahay in xidigana ay ku qanciso inuu saxiixo heshiis cusub. laacibkan ayaa madaxiisa waxaa dul saaran 86 milyan oo euro oo ay tahay inay bixiso kooxda doonaysa in ay hesho adeegiisa, balse qandaraaskiisa oo gabagabo ku dhow. kooxda Blaugrana ayaa diyaar u ah inay qiimo jaban ku fasaxdo laacibka da'da yar. laacibkan ayaa aad looga qiimeeyaa kooxda ilaa markii uu ahaa 7 jir, xilligaas uu kaga soo biiray Barcelona kooxda ay isku magaalada yihiin ee Osasuna, waxaana xilli ciyaareedkii dhamaaday tababare Ronald Koeman oo xidigan da'da yar siiyay fursado badan oo uu kaga soo muuqdo dhammaan koobabkii ay dhashay kooxda Barcelona. dhinaca kalena kooxda ka dhisan London ee Arsenal ayaa suuqa ka raadinaysa beddelka garabkooda midig ee xidiga reer Spain Hector Bellerin oo ka hayaami doona naadiga Arsenal xilli ciyaareedkani. Ganariska ayaa lala xiriiriyay dhowr ciyaartoy oo kala duwan oo ka mid ahaa xidiga Barcelona ku biiray ee Emerson, sidoo kale waxaa lala xiriiriyay laacibka kooxda Lille xulka Turkiga Seki Çelik. daafaca reer Spain Bellerin ayaa tan iyo xilli ciyaareedkii la soo dhaafay la hadalhayay inuu doonayo inuu ka dhaqaaqo geedada Emirates, waxaana si xoogan loola xiriirinayay kooxda PSG. tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa ku qanciyay xidigan inuu ugu yaraan hal xilli ciyaareedka la ku sugnaaday Emirates, waxaana haatan mar kale xoogeystay wararka ku saabsan bixitaankiisa. Nusayr Musrabi oo u ciyaara kooxda Ajax ayaa noqonaya targetka cusub ee Arsenal, waxaana xidiga reer Morocco lagu qiimeeyaa 17 milyan oo euro, waana qiimo ay naadiga London ka dhisan u aragto mid macquul ah. kooxda Ajax ayaa u furan iibinta laacibkeeda, waxaana naadiga reer Holland heesta dhaqaale xumo, sidaa daraadeed waxa ay u furan tahay wadaxaajood laga galo qiimaha ay ku doonayso garabkeeda midig. kooxda reer Jarmal ee Bayern Munich ayaa sidoo kale isha ku haysa laacibka reer Morocco ee Nusayr Musrabi. dhinaca kalena kooxda Everton ayaa isku diyaarinaysa sidii ay uga hortagi lahayd isku day walba oo kooxda Real Madrid ay ku doonayso weeraryahankeeda reer Brazil ee Richarlison. kadib ku biiristii Madrid, tababarihii hore ee Everton Carlo Ancelotti ayaa abuurtay shaki ah in Madrid ay isku dayi doonto in ay la wareegaan weeraryahanka da'da yar. tababare Ancelotti ayaa aad u qiimeeya laacibkan, waxa uuna isku dayi doonaa inuu ku qanciyo naadiga Blancos in dalab rasmi ah ay ka gudbiyaan xidigane. dhanka kale maamulka kooxda ka dhisan England oo aad ugu xumaaday qaabkii tababare Ancelotti uga baxay naadigooda ayaa go'aan ku gaaray inay ku adkaystaan in xidigooda reer Brazil uusan iib ahayn. laacibka reer Brazil ayaa ka mid ah weeraryahanada ugu wanaagsan England, waxaana lagu qiimeeyaa lacag u dhaxaysa 60 ilaa 75 milyan oo euro. dhinaca kalena weeraryahanka caalamiga ah ee kooxda Tottenham iyo xulka England Harry Kane ayaa go'aan ka gaaray mustaqbalkiisa, waxaana warar maanta soo baxaya ay tilmaamayaan in xidigan uu ku wargeliyay kooxda Tottenham in go'aanka kama dambaysta ee mustaqbalkiisa uu cadeyn doono kadib tartanka Euro ee isbuuca dambe furmi doona. laacibkan ayaa dhamaadkii xilli ciyaareedkan weydiistay kooxdiisa in la fasaxo, waxa uuna doonayaa inuu ku biiro koox uu kula guuleysan karo koobab.
waxaana xidigani si aad loola xiriirinayaa naadiyada ka dhisan Manchester iyo kooxda Chelsea. inkastoo wadaxaajoodada uu la sameynayo kooxaha doonaya ay daaha gadaashiisa kasii socon doonaan, haddana laacibkan ayaa ku wargeliyay kooxaha doonaya iyo kooxdiisa haatanba inuusan dooneyn inuu ka mashquulo tartanka Euro oo uu ku bedeli doono xulkiisa saddexda libaax. dhinaca kalena sida uu warinayo Radio Marca, kooxda Bayern Munich ayaa ku dhow saxiixa laacibka khadka dhexe ee kooxda Atletico Madrid Saul Niguez. labada naadi ayaa la tilmaamayaa inay ku heshiiyeen qiimo dhan 80 milyan oo euro, waxaana xidiga reer Spain uu waqti dhow ka mid noqon doona kooxda Bayern Munich. xidiga reer Spain ayaa muddadan la sheegayay in kooxdiisa uu u gudbay rabitaankiisa inuu ka hayaamo magaalada Madrid, waxaana xidigan oo muddo ka ciyaarayay La Liga uu doonayaa inuu tartamo cusub ka dheelo, waana sababta ugu weyn oo uu kaga hayaamayo kooxda sanadkan ku guuleysatay horyaalka La Liga. kooxaha Manchester United iyo Barcelona waxa ay dagaal ku gali doonaan saxiixa weeraryahanka kooxda Villarreal xidiga reer Spain ee Gerard Moreno. laacibka reer Spain oo xil ciyaareed wacan ka hoos qaadanaya tababare Unai Emery ayaa soo jiitay indhaha kooxaha Yurub, waxaana kooxdiisa Yellow Submarine ay isku diyaarinaysaa dalabyada u imaanaya laacibkooda. Manchester United ayaa xidigan awoodiisa aragtay kulankii finalka Europa League oo labada naadi ay isku wajaheen, waxaana xidigan uu dhaliyay goolka naadigiisa. Barcelona ayaa wada isbedel ay ku sameynayso kooxdooda, waxaana xidiga reer Spain uu ka mid yahay xidiga dhowr ah oo ay deenayso in naadiga ay ku xoojiso, halka kooxda Manchester United ay la tacaalayso helidda weeraryahan kooxda koowaad ka mid noqda, waxaana naadiga Red Devils haatan weerarkeeda isu bedbedela xidiga reer Uruguay Edinson Cavani iyo daa'irka reer England ee Mason Greenwood. ugu dambeyntiina weeraryahanka kooxda AC Milan iyo xulka Sweden Zlatan Ibrahimovic ayaa soo dhaweeyay fikradda in AC Milan ay la soo wareegto weeraryahanka kooxda Chelsea iyo xulka Faransa Olivier Giroud. xidiga Chelsea ayaa wararkii ugu dambeeyay sheegayaan inuu wada hadal ula furay naadiga Milan, waxaana xidigan uu doonayaa in xil ciyaareedka dambe uu ka dheelo horyaalka Serie A. Chelsea ayaa ku wargelisay Giroud inuu la hadli karo kooxdii uu doono. laacibkan oo Chelsea kaga soo biiray Arsenal ayaa sanado wacan la qaatay naadiga London ka dhisan, waxa uuna ka tirsanaa ciyaartooydii kula guuleystay naadiga horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League. barnaamijkeeni galabtana waa inaga intaa. halkani waa xog baahiyaha ciyaaraha, waa channel cusub oo ugu talagalay in idinkugu soo gudbiyo warbixinadii ugu dambeeyay kubadda cagta caalamka. dhegeysta ama daawada haddii ay ku qanciyeen warbixinadeena, fadlan subscribe iyo like kanaalka, wixii taliyo tusaale ahna inuu ugu soo gudbiyo commentiga. mahadsanidin.